waxaan ka hadlaynaa mujtamacaad weeye ee afraad ma aha. mujtamaca adduunka ku nool laba u qaybsamaya. bulshada ilaahay diintiisa ku dhaqantana waxaa weeye waa bulsho islaamiya. bulshada aan saa ku dhaqaminna ama horumar ha gaarto ama xadaaro ha gaartee waa bulsho jaahiliya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد داوضيال ومركلة برنامج كني كلن كجمعة يدعودي اعبد الله ما لكم من إله غيره. waxaa igala qayb galhaya xalaqadan doctor cabdullaahi sheekh doon cabdi, doctor cabdiraxmaan daahir aweys, doctor cusmaan cabdulla rooble iyo ustaad sheekh maxamed cali mire. dhammaantiin ku soo dhowaada xalaqada. xalaqadii hore waxaad kaga soo hadasheen waaqica mujtamacaadka caalam islaamigu ay maanta ku sugan yihiin iyo muuqaalo ka mida waaqicaas ayaad wax ka soo tilmaanteen. waxaan aada u jeclaan lahaa caawa bal inaad wax nooga tilmaantaan sideedaba mujtamac muslim ah muxuu yahay, mujtamaca jaahiliga ahay muxuus yahay. haddii dhanka musطalaxa sharciga lagu fiiriyana daarulislaam maxay tahay, daarulkufrina maxay tahay. arrintaas inaad caawa noo bayaanisaan si aan u ogaano markaan helno tilmaamaha saxda ee labada mujtamac kale leeyihiin mujtamacaan maanta jiraahay halkuu islaamka ka taagan yahay. waxaa noo bilaabahaya doctor cabdiraxmaan daahir aweys. fadal doctor. bismi illaahi raxmaan iraxiim. intaanaan ka hadlin mujtamaca islaami ah waxaan rabaa inaan adkeeyo waxaan ka hadlaynaa mujtamacaad weeye ee afraad ma aha iyo ashkhaas oo mucayana ma aha. qof markii la tilmaamayo ama la sifaynayo ama la xukumayo xukun la saarayo wuu ka duwan yahay markii nolol guud oo ummadu leedahay ama mujtamac leeyahay la xukumayo ama la sifaynayo. waxa aan ka hadlayno oon sifaynaynaa waa mujtamacaadka bulshada ku nool, bulshooyinka ku nool ama ummadaha ku nool, caalamka ku nool, gaar ahaan caalamka la yidhaahdo caalam alislaami ku nool oo u nasab sheeganaya ama u tirsanaya inay muslimiin ay yihiin, isku tirinaya. caalamka ayaan ka hadlaynaa. markaan usoo noqdo yaa muslima mujtamacaadka ama bulshooyinka ama ummadaha, waxaa weeye nolosha insaanka waxay ku dhisan tahay qaacida fikriya. nolol sida xayawaanka ama bahaa-imta iska socota ma aha. laba ayayna mid tahay qaacidada fikriga oo nolosha ku dhisan tahay inay tahay qaacidati tawxiid oo alla subxaanahu watacaala ilaahnimada loo waxidayo keliga u iska leeyahay, oo macnaheedu og yahay cubuudiyo lilaahi tacaala yaa iskale waxdahu. dadkuna ay yihiin ama bulshooyinku ay yihiin dad alla subxaanahu watacaala uluuhiyadaas addoon inay u yihiin ictiraafsan oo ictiqaad ahaan u ictiraafsan, waaqic ahaanna ay uga muuqato alla inay addoomo u yihiin, cid kalena aysan addoommo u ahayn. saas ayaa nolosha bini aadamkuna bidaayadeedii hore ku bilaabatay. nebi aadam ku bilaabtay iyo usradiisii. markii ay ka wecdeenna mar kasta sidii hore looga soo hadlay rasuul oo u soo dirayey ummaddaas maaragtay noloshooda ku dhista qaacida tacadud alaaliha, tacadud almacbuudaat, macbuudaadku inay badan yihiin oo caabuda alla keyrkiis cid aan ahayn
una hoggaansanta noloshoodana ku dhistaa mar kastay arrintaasu dhacdo rasuul baa alla u soo dirayay subxaanahu wa tacaala u celiyaa asalkii oo ugu baaqa noloshiina ku dhisa alla subxaanahu wa tacaala addoonnimadiisa alla keligiis ilaah u qira kayrkiisna asaga cidaan ahayna ka xorooba rasuul kastana saasuu fulin jiray oo ku lahaa sidii alla la soo diray an icbudullaaha wajtanibu daaquuta alla caabuda ka asagaa keligiis macbuuda asagaa xaqa waxa kale oo dawaaqiid ah oo la caabudana ku kufriya sidaas maaragtay waxaa weeye ayuu lahaa mujtamacii marka saa ku dhisa noloshiisa oo qalbiga ka rumaysan iyo ictiqaadka rumaysan inuu addoon yahay alla keligiisna uu addoon u yahay cibaadada iyo waxaa ka dhalanaya ictiqaadkaas oo ah inuu cibaadaadkii shacaa'irta ahay oo muuqatay alla keligii u gudbiyo nolosha iyo maaragtay waxaa weeye koonkan tafsiirka laga bixinayo iyo aragtida alla ka bixinayana shay kasta uu ka bixinayana saa u qaato oo ula tacaamulo oo ula kulma alla subxaanahu wa tacaala yacni sifooyinkiisa alla ka qaata calaaqaadka uu la yeelanaya alla subxaanahu wa tacaala sida ay tahay ka qaata alla subxaanahu wa tacaala koonkan yacni aragtida uu ka qaadanayo alla subxaanahu wa tacaala tou ka bixiyey saa u qaadanaya noloshiisana alla u hogaaminaya sharaa'icdii iyo axkaamtii noloshiisa tandiiminaysay oo maaragtay waxaa weeye hagaysayna alla subxaanahu wa tacaala uu ka qaato markaas ayuu mujtamacii wuxuu noqonayaa mujtamac muslima oo markii horena isugu yimid afraad ahaan isugu yimid inuu saa rumeeyo cubuudiyadana alla keligii iska leeyahay yani waxdaanada ilaahay qira inuu hoggaansan saas isugu yimid afraaddiisa yacni waxa weeye kadibna hirgeliya oo alla subxaanahu wa tacaala sidii uu maaragtay u amray ay u qaadanaya axkaamtiisa mujtamaca aan u qaadan sidaas oo alla subxaanahu wa tacaala aan ictiqaadkiisa ku waxidin inuu keligii yahay khaaliqii koonkan iska lahaa inuu yahay mudabbirkii maamulayay koonkan cirka waxa jira wax naga sarreeya waxa hoos jooga bini aadamka noloshiisa yacni haddii ay tahay xarakadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo wax u qaadanayo iyo haddii ay tahay yacni waxa weeye caafimaadkiisa iyo dhalashadiisa iyo midabka uu qaadanayo iyo jaanibka laa iraadiga inuu allah subxaanahu wa tacaala keligii cirka iyo dhulka isaga uu maamulo oo u taliyo saas maaragtay waxaa weeye mujtamacaan u ictiqaadin oo aan sidii ku fulin shacaa'irtii iyo cibaadaadkiina alla keligii siinin sharaa'icdiina alla aan kala kulmin waxaa weeye oon shuruudahaas iyo tilmaamahaas tilmaanta aan la imaanin mujtamac muslima ma aha waxaa keliya muslima mujtamacii saas maaragtay waxaa weeye noloshiisa ku dhisa cubuudiya lilaahi addoonnimaa tahay addoonnimada allah iskale subxaanahu wa tacaala keligii ku dhisa sharaa'icdii iyo cibaadaadkii u gudbiya sharaa'icdiina kala kulma mujtamaca saas yeela ayaa mujtamac muslima ah kaan yeelinna mujtamac muslima ma aha الرحيم sida doctorka uu sheegay sideeda waxaa isweydiin leh ummad goormaa la dhihi karaa ummad muslim ah waayo ummad markaan leenahay ummad meel degan oo bulsho ah marka la leeyahay ummaddaas waa ummad muslim ah sidee magacaas ay ku qaadan karaan horta sideedaba kuma qaadan karaan magacaas ummad dhul oo islaamka ka tali jiray oo maamuli jiray ayay degan yihiin kaligeed kuma qaataan arrintaas waa midda kale ummad aabayaashood iyo awowyaalkood ayaa islaamka ku dhaqmi jiray oo isku xukumi jiray oo noloshooda uu maamuli jiray ummaddaasi islaamku noqon mayso waxaa ay islaamku noqon kartaa ummadda kuwa markaa jooga oo magacaas la siinaya ayaga inay
islaamkii isku dhaqayaan dhinac kastaba ay noloshooda qaybaheeda kala duwan in ay waxa hagaysa inay tahay shareecada islaamka sida caqiidadoodaba wixii ilaahay xaggiisa ka yimid ay u qaateen oo cibaadada iyo waxay samaysanayaan wixii xagga alla ka yimid ay u qaateen sidoo kalena sharciga iyo nidaamka iyo qawaaniinta noloshooda kala hagaysa mid alla keligiisa ay kala kulmeen ay tahay sidoo kale dhaqankooda hiddahooda akhlaaqdooda noloshooda kale waxay wax ku qiimeynayaan oo dhanne ay kala kulmayaan shareecada ilaahay uu usoo dejiyey markaasay ayaga ummad muslim noqon karaan laakiin aabayaashayna islaam maaragtay ahaa jiray ama dhulkaana islaam waa lagu xukumi jiray ma lagu noqonayo oo ayaga kuwa markaa jooga hadda shareecada ilaahay inay iska fogeeyaan sharciyada kale qawaaniin kale xeerar kale hiddo kale dhaqan kale ama ayaga deegaankooda ay ka qaateen ama ummado kale ay ka qaateen noloshooda ku dhaqaya haddana islaam sheeganaya saas islaamku ma noqonayaan ummadda sideeda alla subxaanahu watacaala ummadda muslimka ee markuu la dardaarmayay wuxuu alla yidhi subxaanahu watacaala ina hadihi ummatukum ummatan waaxidatan wa ana rabukum facbuduun aayaddaas waxay ku jirtaa suuratu ambiyaa oo nebiyadii ilaahay inta laga soo wada sheekeeyey suuradda dhanba magaceeda loo bixiyey suuraddii nebiyada ayaa alla wuxuu kusoo khatimay intaa marka lasoo sheegay ummaddaas ayaa ummaddii nebi maxamed lala hadlay subxaanahu wataala alayhi salaatu wassalaam oo la yidhi ina hadihi ummatukum ummaddaas lasoo sheego ambiyada sidaa u raaci jirtay ummatan waaxida weliba ummad isku wada mid aheedo hal jid raacday taasaa ummad idiin ah wa ana rabukum facbuduun alla u le anigana rabbigiiniyaan ahee aniga iga dambeeya aayaddaas sida ka muuqata laba asaas oo saldhig ah ayaa mujtamaca loo dhigay si uu alla mid ugu dambeeya noqdo kow wa ana rabukum facbuduun horta ummad ilaahay isu dhiibtay oo ka dambaysa oo ka amar qaadata oo addoommo u ah oo allahaas uu u taliyo inay noqoto iyo ummatan waaxidatan in ummad waxay ku midowday ay tahay facbuduun cibaadada ilaahay iyo diinta iyo islaamnimadaas ay isu keentay labada saldhig ayaa saldhig u ah qaybtii hore waataan ka hadalnay oo aan dhahnay facbuduun qaybta ah oo ummaddaas inay alla ka dambayso nolosheedoo dhan alla uu ka taliyo waa kow midda dambane umma waaxida inay noqoto waa ummad waxay ku walaalowday oo iskugu timiday oo ummadba ay ku tahay ay tahay faqad ilaahay diintiisa inay ku wada walaaloobaan oy ku dhaqmaan oy wada halgamaan ma aha ummad oo midib isu keenay ma aha ummad dhalasho iyo abti iyo abtir iyo israa wadaagnaa ummad isku deegaanaan nahay isku danaan nahay isku tafiiraan nahay ummad ay isu keentay maaha sida ummadaha maanta jiro o dhan kulligood waxyaalaha isu keena waa ognahay ama dhulka waddankaa ka dhexeeya ama abtirsi baa ka dhexeeya ama waa isku midib ama waa isku luqo ama waa isku dan waxaas oo dhan ummadaha lagu dhisay islaam uma yaqaano islaamka wuxuu u yaqaanaa islaamka ummad waxay iskugu timidiba ay tahay alla aan ka wada dambayno sharcigiisa aan wada qaadano aan ku dhaqanno kulligayn madax iyo maaragtay maxaan ku raha shacibba inaan meel iska dhigno teena araacdayn iyo waxaan annaga nala qurxoon tii alla uu sharcigii uu alla noo soo deji kulligayn aan isku xukunno horta arrinta waa taa haddaba marka taariikhda islaamka warkaas aan hadda sheegayno nusuusta sidai u sheegaysa waaqicii dadka muslimiinta see u ahaa islaamkii ummaddii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu aleyh u dhisay ummad waxay aheeday maxaan ku ihahdaa carabti baa ku jirtay furusti baa ku jirtay ruum baa ku jiray afrikaana ku jiray islaamka waa ognahay caalamka saddexdii qaaradooda waagaa la yaqiinay intii badneed isagaa xakumayo ku filay hal dowladooda un iska khilaafa islaamiya ayaa wada maamulaysay halkaasaa ummadihii oo dhan ku waliba midibkiisii iyo dhaqankiisii iyo hiddihiisii iyo wuxuu yaqiin oo dhan inta kasoo tegay aa laiskugu yimidi halkaasaana waxaa ka dhalatay ilbaxnimo islaam oo macaan oo 10 qarni caalamka dhan hogaaminaysay
ayaa ka dhalatay oo ay sameeyeen dadka kala midibka ah, kala asal ah, kala luqa ah, kala deegaan ah, kala hiddo dhaqan ah oo qolo kasta wuxuu idin ka soo tagtay iskugu yimid. haddaan saas ku fiirino maanta ummadda sifadaas oo kale ma joogtaa? xaggay joogtaa ummadda? waa kuwa islaamka sheeganay maanta inta la kala qoqobay qolo soomaalinimo isu bahaysatay, masrinimo kuwa isu bahaysay, sacuud bakistaannimo kuwa isu bahaystay, kuwii saas loo kala qodo ama midib ama dhul ama abtirsi maaragtay luqo midaysa. hadda jaamacadda carabta luqaa la yidhi wixii carabi ku hadlaa baa la yidhi muslimkooda iyo masiixigooda iyo gaal maaragtay kulligood waa ummadda saas ah oo bedeshay wixii ummad isu keenayo xagga diinta aheeday bedeshay oo samaysatay waxyaalaha kaloo iskugu yimaadaan. taas ummad muslima lama yiraahdo. ummaddii muslimka oo la yaqiinay oo islaamka u asisayna saas ma ahayn. walaalaha waxay ka soo hadleen si cajiib la uga soo hadleen ummadda muslimadda ah sifaadka la rabo in laga helo. sidii la sheegayna ummad markii laga hadlayo fardi lagama hadlayo. aniga marka waxaan rabaa inaan ku daro su-aashii walaal ouna soo weydiiyo ahayd si dadku ay u fahmaan war qof walbo xageed ku jirtaa, maxaa tahay, war ma islaamaa tahay mase waxaa tahay islaam ma tihid, maxaa ummad islaama la yidhaahdaa, maxaa ummad jaahiliya la yidhaahdaa, jahli maxaa lagu galayaa, islaam maxaa lagu galayaa, islaam maxaa lagu galayaa. walaalaha ka soo hadlay waxaan rabaa qodobkan jahliga ilaahay subxaanaه watacaala wuxuu leeyahay afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuuna laleeyahy. war dadku ma waxay rabaan xukma aljaahiliya miyay rabaan? maanta waxaan ogsoonahay caalamka hadda aan ka hadlayno caalamulislaami lagu magacaabo. qofkii aad tiraahdo qofkaas waa jaahili, xanaaqoo dhig isla siinay, meel xumay ka gaaraysa, ma anagu jaahili ileeyahy. dadku maba fahamsanaba maxaa jaahili looga baxaa, maxaase maaragtay jaahili lagu noqdaa, maba fahamsanaba. waxaa weeye ilaahay aayaddaa sifada ou sheegay jaahiliya waxaa la yidhaahdaa xukmu lbashari lilbashar, ama muxuu ahaa cubuudiyatu nnaasi linnaasi bitashriici bacdi الnaasi linnaasi maa lam ya'dan bihi اllah. yani labadaas sifaba waa qaadanayaan. oo macnaheedu maxay tahay? basharka bani aadamku in uusan allaah ka qaadan nidaamu lxayaat, ama haddii kale jiritaankiisaba waxuu ku dhisan yahay iyo daliilkeeda uusan allah ka qaadane bani aadam ou ka qaato. haddii si kale loo yiraahdo in dadku ay addoommo u noqdaan, oo bimacnaa addoommo u noqdaan maxay tahay? ay raacaan bani aadam ayaga lamid ah oo ay ku raacaan sharci bani aadamkaas ou dejiyey oon ilaahay shaqo ku lahayn subxaanahu watacaala. haddaa aragto ummad saasa, nin walba waa isku miisaami karaa, waa wasfi daqiiqa, qof walba waa isku miisaami karaa. adiga ma jaahiliyaa tahay base islaamaa tahay? markaad muxuu rabta inaad aqoonto sharciga noloshaada yaad ka qaadataa, qiyamtaada yaa ka qaadataa, nidaamka noloshaada hagaayoo dhan yaa ka qaadataa. ma ilaahay baa ka qaadataa base bani aadam adiga kula midaha ka qaadataa? waadix weeyaan umalina qadiyadaas weeye aayadduna ay tilmaantay. idan sida dadku wax u fahmeen maaha. dadku waxay wax u fahmeen qadiyo maalin soo dhacday. jaahiliyada waxaa la yidhaha jaahiliyat alcarabaa la yidhahda. qabla alislaam bayna ahayd, wax damba jaahiliyad damba sooma noqonayso. arrintaas wax jira ma jaahiliyadda waa xaalad ama sifo jirta oo mar kasta zaman kastoo la helo muxuu ahaa qofkii laga helo ama ummaddii laga helo ay ku dhaboobayso jaahiliyaddaas. mana ahan zaman mucayana ma ahan, waa mid hore u jirtay, waa mid hadda jirta, waa mid imaan doonta haddii sifadaas la helo. ambiyadii ilaahay subxaanahu watacaala oo nebi moxamed oo ugu dambeeyey calayhi salaatu wasalaam, qoomku markay ka dheeraadaan ama ka leexdaan ilaahay waddadiisii subxaanahu watacaala, ama leexasho jus-iya ha noqoto ama leexasho kulliya ha noqoto, maxay ku tilmaami jireen? inakum qowmun tajhaluunay ku jirin, dad jaahiliina haatiin. aan ka soo qaadano nebi nuux calayhi salaatu wasalaam markii qoomkiisii uu dacwadii ugu yeeray ay dhaheen
waxaan ku arkaynaa dadkii araadisha ahay oo liliitayaa ku raacay. maxay wax ku qiimeeyeen? dadkii maalka lahay kuma raacin, dadkii madaxda lahay kuma raacin, taasay wax ku qiimeeyeen. wuxuu yidhi, wuxuu ugu jawaabay, wamaa ana bidaaridi aladiina aamanuu inahum mulaaquu rabbihim walaakinii araakum qowman tajhaluun. waxaan idiin jeedaa dad jaahiliina inaad tihiin oo jahli samaynaya inaad tihiin. arrinta waa ku dhalaaliy. sidoo kale soo qaado nabiyullaahi huud oo kalayto soo qaado, markii muxuu ahaa reer caad oo u yeeray oo dacwadii iyo tawxiidka ucbudullaha maa lakum min ilaahin kayru oo u yeeray, waxay dhaheen maaragtay waxaas wax ka jira male, ma waxaad noo keentay inaad naga sarfiso aalihadii? inama alcilmu cinda allah ayuu ku yidhi. qaala inama alcilmu cinda allah waubaliqukum maa ursiltu bih walaakinii araakum qowman tajhaluun. waxaan idin jeedaa inaad jaahiliin tihiin aan idin jeedaa. ujeedaa wasfigaas daqiiqa. sidoo kale nabiyullaahi luud soo qaado, qoomkiisii markay ficilshii afcaashii xumeed ay sameeyeen, ainakum lata'tuuna arijaala shahwatan min duuni الnisaa bal antum qowmun tajhaluun. sidaas buu yiri. waxaa ku xigtay, waxaan ku xijinaynaa oo mihaal ahaan aan usoo qaaday nabiyullaahi maxamed calayh الsalaatu wasalaam. muxuu ahaa markii ay isku hor yimaadeen xoogaa yar xanafa ay dhex martay ansaartii iyo muhaajiriintii, muxuu yidhi, abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum. war ma anoo ilna jooga miyaa jaahiliyo dacwadeed wixii jaahiliya iskugu yeeri jirtay dadka aan ilaahay aqoon miyaad u laabateen anigoo inla jooga? sidoo kalayto ninkii yidhi yabna sawdaa, muxuu yidhi, inaka imru'un fiika jaahiliya. idan waxaan ka fahmaynaa jaahiliyadu waa xaalad, waa wasfi. haddii ay ku qabato waxaa weeye saa uga bixileed ku dadaal maahane ha inkirino ha soo boodin oo ha nicin. waxaa weeye waa xaalad jirta waay. waa haddii lagaa waayo ilaahay diintiisii ama caqiide ha noqoto ama shariico iyo shacaa'ir ha noqoto ama nidaamulxayaat ha noqoto, haddii lagaa waayo oo aada bani aadam wax ka qaadato waxaa ku jirtaa jaahiliyaa ku jirta. jazaaka allahu khayran. waxaan ku dari lahaa meel yar oo in badan ay dhici karta dadka inay yaro ka habowdo. markii laga hadlayo hadda aayaddii aad ku bilowday, ilaahay leeyahay afa xukma aljaahiliyati yabquun. dadku markii xukum la sheego waxay keliya rabaan inay ku soo koobaan maxkamaddii iyo xuduuddii, laakiin xukumka ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay loo khaalis yeelo wuu ka guda wen yahay. waxaa weeye maxkamad iyo qadaa waa ka wenye. waxaa weeye noloshan sideedaba yaa laga qaadanhayaa way taladeeda. taladaas maxaa soo gelahaya? maxaa xalaala, maxaa xaaraama, maxaa foolxun, maxaa qurxan, maxaa qalloocan, maxaa toosan, waxaasoo dhan baa ku jira. waana meesha maanta adduunka laga haga way. marka ilaahay leeyahay afa xukma aljaahiliyati yabquun, macnaheeda waxaa weeye taladaa guud ee ummadda lagu hagahayo ma shareecadii ilaahay bay dadku qaadanhayaanoo muslimiin bay noqon, mase waxaa weeye bini aadam bay ka qaadanoo markaasay jaahiliyiin noqon. marka nuqdadaasaan ku dari lahaa. runtii yani dakaatiradaas ay ka soo hadleen gabagabadii. marka islaamku sidiisaba bulsho kasta wuxuu u qaybiyey laba nooc, bulsho islaami ah iyo bulsho jaahiliya. walaalaha runtii ka soo tilmaamay bulshada islaamiga ahna waxaa lagu garanayaa tilmaamaheed waxaa weeye waa bulsho ilaahay isu dhiibtay, ilaahay adeecsan, ilaahay ka dambaysa, nidaamkii iyo caqiidadii iyo cibaadadii iyo wixii ilaahay u soo dejiyey ku socota. islaamku wuxuu u yaqaanaa bulshadaas bulsho islaamiya. bulshadii ayadu wax degsata ama bini aadam kaloo iyaga lamida wax u dejiyaan ama xaraha xaggay say rumaysan yihiin ama dhaqankooda ama nidaamka xayaatooda ama noloshooda maamulkoodana islaamku jaahili u yaqaanaa. ma ka hadlayna sida doctorada soo sheegeen dad ku hoos nool ama bulshada islaamka ah dad waxaa ku noolaan kara aan rumaysnayn islaamkii. sidoo kale bulshada jaahiligaana waxaa ku hoos noolaan kara dad muslimiina ku hoos noolaan kara. laakiin waxaa weeye yaa talada iskale, yaa maamulka iskale, yaa loo hogaansan yahay, yaa laga dambeeya. islaamku sidiisaba labadaa bulsho ayuu u yaqaanaa oo labadaas nooco taqsiimka islaamka u yaqaano oo ilahay agtiisa laga ictiraafsan yahay. waxaa weeye bulsho muslima
oo sidii ilaahay uu rabay subxaana watacaala ugu dhaqanta diintoodii iyo bulsho wax kale ama cid kale ama arbaab kale ay wax u dejisay oo sidaa u dhaqanta hadday rabaan dadku marka siday rabaan ha u fasirteen ha yidhaahdeen dadka ilbaxa dadka hore u maray dadka technology gaaray jaahili maaha ha yidhahdeen hadday rabaan laakiin islaamka aan ka hadlayno iyo diinta ilaahay subxaana watacaala uuna fahamsiiyey aan ka garanayno waxaa weeye bulshadii ilaahay diintiisa ku dhaqantana waxaa weeye waa bulsho islaamiya bulshada aan saa ku dhaqaminna ama horumar ha gaarto ama xadaaro ha gaartee waa bulsho jaahiliya wey jazaaka allah khayran haddaba markaan eegno xalaqada natiijada nooga soo dhex baxaysa ama waxa aan ka fahmayno waxa weeye marka magacan ah mujtamac islaami ah ama mujtamac jaahiliya ama sidii fuqahada islaamka u taqaanay daarul islaam iyo daarul xarbi ama daarul kufri waxa lagu dhisahayaa waxa weeye axkaamta qaalibka ee ka socota meesha weeye hadday axkaamta meesha lagu maamulahayo cidda talada haysa ay yihiin dad alla u hoggaansan oo sharcigiisii ummadda ku wadana daartaas waa daarul islaam hadday yihiin qolo gaalo ah oo ilaahay sharcigiisii ka furtay magacay rabaanba ha sheegteene oo ayagu miday keensadeen wax ku maamulahayana inay daartaasu noqonayso daarul kufri iyadoo markaa ayan waxba ka bedelaynin dadka meesha ku hoos noole waxa ay sheeganhayaan iyo waxay samaynhayaan ayaa meeshaas nooga soo dhex baxaysa arrintaasuna waa runtii waa arrin aad iyo aada muhiim u ahoo islaamku meesha biyaba kama dhibcaanka ah ee u yimid baa waxay tahay in uu dadka u addoomiyo una hogaamiyo alla subxaanahu wa tacaala oo ay dadku noqdaan dad alla ka dambeeya meesha ay ka muuqato ka dambeyntuna waa talada lagu dhaqmahayo yaa iska leh marka meeshaas waxaan ka garanaynaa marka inayna jaahiliyada islaamku ayaan ahayn qadiyad macnaha waxaa weeye ku dhisan shacaa'ir iyo wax la mida ee waxay ku dhisan tahay hoggaanka waxaan ka hadlaynaana waa mujtamac sida doctor cabdiraxmaan u sheegay afraad maaha waxa laga hadlahaya waa markii la yidhaha mujtamac waxaa weeye xukumkiisu halkaasuu ku xiran yahay lidaalika marka meeshaas maxayna tusinaysaa waxaa weeye xalaqada dambaan uga hadli doonaayo booska marka mujtamacaadka maanta jira ay dhici doonaani tacriifkaas culummadu islaamkuna horey u dhigeen haddana la sheegay bay ku xiran tahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب